ma kugu dhacday inaad qosasho adiga oon kala goyn qosalka daqiiqada xidhiidh ah kadibna ma isla yaabtay oo ma ku tiraabtay waan beer casaaday firixda iga dhammaatay iyo hadallo kale oo la micno ah dabadeedna inta aad neef tiratay ma nasatay bal haddaba qiyaas qof haddii uu dibnaha kala qaadaba aan isku qaban karin qosol dartii erey kasta uu dhahana ku ladhaya waxoogaa qosol ah sidani waxa ay ku dhacday oo ay haysataa gabadh ku nool waddanka Suuriya sheekada gabadhan ayaa soo baxday mar lagu wareysanayay warbaahinta dalka Suuriya gaar ahaan mid ka mid ah telefishinada maxalliga ah ee waddankaasi laga leeyahay waxayna soo jiidatay kumanaan kun oo qof oo daawaday muuqaalkeeda gabadhan ayaa afka aan isku darin intii uu socday wareysigu qosol dartii magaceeda lama xusin waxaase la sheegay inay u dhalatay waddanka Suuriya iyadoo ka hadlaysa arrinteedan mucjisada ah waxa ay tiri wax walba waa aan ku qoslaa sabab la'aan waana sii qosli doonaa xikmadda qosolkaygu waa in dunida oo dhammi ay qoslaan si aanay u dareemin wax qalaa wariyaha wareysanayay ayaa waxa uu weydiiyey su'aal u dhignayd bal in xaaladdeedan ay ogeysiisay dhakhaatiir ama ay booqatay goobo caafimaad waxayna tidhi waxay ii sheegeen inaan qosli doono ilaa inta aan ka dhimanayo gabadhan ayaa hadda ku nool xaalad adag sida ay sheegtay taasi oo dhib ku keentay geedisocodka nolosheeda waxay hadda dhigataa fasalka 11aad ee dugsiga sare iskuulka laftigiisa ayay kala kulantaa dhacdooyin ku sii badiyey ciidhiga ay dareemayso qosolkeeda mucjisada ah awgeed waxaa ka mid ah in ardaydu ay dhibsadaan qosolkeedan badan kadibna ay ka ashkatayso maamulka halka arrintuna uu ku soo dhammaado qosol ay la wada daataan maamulka iyada iyo ardayda kaleba waxay intaasi ku dartay inaysan weligeed ooyin intii ay garaasatay oohintana ay ugu dambaysay markii ay ku jirtay dhabta hooyadeed hooyada dhashay gabadhan ayaa waxa ay sheegtay inay dareento yaxyaxyo ceeb markay aragto gabadheeda oo ku qoslaysa goob aan qosol ka bannaanayn sida marka ay tagaan goobaha ay ka jirto tacsidu warbaahinta alcarabiya oo wax ka qortay mucjisada gabadhan ayaa ku warrantay in arrintani ay la xidhiidho dhibaato dhanka neerfaha ah isla markaasina gabadhan uu ka lumay neerfayaashii wax xakamayn lahaa